bisha barakeysan ee Ramadaan waa bil ka duwan bilaha kale waxaana bishan uu Ilaahay dhammaan ummadda muslimiinta uu ku waajibiyay soonka sida ugu waajibiyay ummadihii ka horeeyay magaalada Hargeysa waxaa ku nool qaybo bishaasi Ramadaan kala duwan kala kulma dhibaato aan la dareemeyn waana mid haddii lagu baraarugo qof kastaba uu dareemi karo xanuunka iyo dhibka ay ku hayso dadkaasi dariiqyada iyo xaafadaha magaalada waxaad ku arkaysaa dad uu eebba ka qaaday maankoodii kuwaasoo 11 bilood ee kale ku dul nool meheradaha shaqeeya gaar ahaan kuwa cuntooyinka sameeya iyaga oo ka hela raashinka hadhaaga ah haddaba bisha Ramadaan aroortii iyo duurkii waxaa xidhan hoteelada cuntada iyo guud ahaanba meheradaha wax laga cuno taasi waxa ay saameyn ku yeelatay nolol maalmeedkii dadka uu eebba xuskooda ka qaaday oo xataa aan helin goobo ay ka cabaan biyo waxay suura gashay inaan fursad u helo shaqsi Ilaahay ku ilhaamiyay caawinada dadkaasi kaas oo lagu magacaabo Maxamed Xuseen Maxamed kuna magac dheer Jagac waxaana uu sheegay inuu sameeyay urur khayriya oo ugu magac daray Sanani Foundation waxaana cunto bisil ugu qaybiyaa rag iyo dumarka wixii aan u joogin miyirkoodii ku arko suuqyada magaalada isagoo oo wareega bartamaha iyo xaafadaha kala duwan ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa intii cuntada uu qaybinayay waxa ka muuqatay naxariis markasta oo la kulmo qof xanuunsanaya way isfahmayeen waxaana uu la sheekaysanayay sidii qof caadi ah taasoo markii aan weydiiyay uu sheegay inuu maalin kasta u geeyo cunto dabeetna ay isku barteen Maxamed Xuseen Maxamed oo ka hadlaya sababta ku kaliftay inuu u gargaaro dadka uu xuskooda u dhiman yahay ayaa waxa uu yiri marka waxaan doonayaa barnaamijku Ilaahay ku ilhaamiyay dadka xanuunsanaya amba xanuunka dhimirka la yiraahdo qaba amba waalan qof sidoo yaqaano bisha barakeysan ee Ramadaan dadka dawladmeerka ama dariiqada jiifa dad baa jira dabada meeroon cidba aan daryeelin qaarna dadka waalan dadkooda moogta meelaha ku xidha amaba isbitaalada geystaan nadaniga ka kara dad baa jira ehelkooda aan daryeelin cidna aan lahayn oo suuqa dariiqada iska fadhiya cidna aan daryeelin waxa ka cuni jiray makhaayadaha iyo hudheelada iyo meelahaas wax lagu iibiyo ayay hambooyinka cuni jireen biyahana meelaha iska caabi jireen bishan Ilaahay bishii barakeysan Ramadaan intaba waa la xidhaa maalmeedka dhammaan wadamada dunida muslimka oo dhan waa xiran tahay meherad walba meel biyo ka cabaan ma jirto bacad kuleelka dhacaya Hargeysa amba magaalooyin kale Soomaaliland amaba Soomaaliya ama geeska Afrika ba dhulka Soomaalida meel degan meel walba haatee dadkaas way dhibaataysan yihiin marka waxaan ku codsanaya dhammaan madax maamul madaxweyne maal qabeen cid Ilaahay madax ka dhigay isaga madaxnimada siyaasadii maal u siiyayba waxaan leeyahay bal hoos u eega walaalihiina muslimiinta oo walaal soo caawiya bisha barakeysan Ramadaan iyaga malaa'ikta ka degto looma inay soomaanba kuma waajib aha ayaan la xisaabtamin sidii qof caadi Ilaahay uu ku leeyahay oo la oran suuqa waxba ku cunin waxba cabaya biyo cabaya waxba cunaya yaan la oran iyaga looma leh waa loo gargaaro hambada iyo afurkaaga amba waxa hambada ku suxurto bal soo qaado bal khayr shaqo loo dayday dadka xanuunsanaya ugu dambeyntii Maxamed waxa uu ummadda muslimiinta u ka codsaday inay khayrkaas la qaybsadaan maadaama uu xilqaamay isaguba daawadayaal waxa barnaamijkan aad kala socoteen shabakada Harwanaag News waxaana uu toos barnaamijkan idinka imanayay xafiiskeeda magaalada Hargeysa waxa barnaamijkan idin la socodsiinaya anigoo Ibraahim Qaasima dhamaantiin waxa idinka tagay Ramadaan Kariim